caruurta markay dhashaan sanadka koowaad aragooda koriimo ayaa ku socotay isbedel loo baahan yahay marka isbedelkaas inaad fahantid waxay tahay sidoo kale dhamaadka muuqaalkan waxaa ku ogaanaysaa canuga sanadka koowaad isbedel ku imaanaya iyo haddii canugaaga sida la rabo indhihiisa u korayaan iyo aragii ayaan muuqaalkan kaga hadli doonaa daawasho wacan. mar kale waa anigoo torxiyaa ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo arag haddii taa markuu warayso muuqaalin daawatid subscribe sar sidoo kale like noo sar haddii aa hore nooga mid ahayd canuga markuu sidaas u dhasho marka ugu horeysa iftiinka ayuu aad u dhibsanaya waa sababta indhaha uu isugu xiraayay sidoo kale haddii aad fiiriso kale bu'di yar ee madow canug aad ayay u yar tahay sababtaasna waxaa keenaysa in iftiinka aad u dhibsanaya awgeeda canuga aragiisoo kale ma dhammaystirno waa bilaab sidaas awgeed keliya wuxuu arki karaa hareeraha canuga oo waxaa laga yaabaa hooyada markay fiiriso kale wejigeeda ma fahmi karo humaaga iyo hareeraha wejiga ayuu fahmi karaa inuu canugaaga ku fahmo haddii aragtid oo kale xilliga waxyaabaha samayn karta waxay tahay oo kale mara madow oo kale inaad xiratid ama wax uun kalar maadaama xilligan oo kale aragiisa kalar ma laha keliya badanaa wuxuu fahmi karaa black and white-ka iyo hareeraha marka haddii aad qaadid oo kale wax madow oo kale oo hareeraha inta ku xiratid oo kale laga yaabaa inuu aqoonsado in hortiisa wax ay taagan yihiin oo kale attentionkiisa waa heli karta markii canuga isbuucyo jirsadana qaybta retiniga koriimadeeda ay kordhayso sidoo kale buuda yar oo haddii aan sheegin xoogaa waxaa arkaysa in uu weynaanayo size-keeda sidoo kale kalarka black and white wuxuuna bilaabaya iftiinka iyo kalarada iyo markaa inuu fahfahmo oo markaa indhaha kala furo oo wixii uu dareemo ayuu bilaabaya markii uu isbuucyo u jirsado canuga markii uu hal bil jirto giisa markaa koriimada ayaa sii kordhaysa oo markaa inuu ilaa 3 feet uu wax ka arki karo ayuu bilaabaya laakiin waxyaabaha ka fog oo kale ma fiirinayo oo badanaa attentionka wuxuu saarayaa waxyaabaha u dhow agtiisa ah sidoo kale maadaama aragiisa kalarada xoogaa fahmi karo badanaa wuxuu indhaha la raacaya waxyaabaha kalarka leh oo kalarka casaanka mise kalarka buluuga waxyaabahaas ayuu indhaha la raacaya oo markaan waa uu ka baxay black and white-ka marka uu arkayo inkastoo hooyada mise qofka ag joogo kale wejigiisa xilligan uu si fiican u aqoonsanay laakiin badanaa waxyaabaha kalarada leh oo hareeraha ilaa meelaha dhadhow ee aragiisa ayuu markaa bilaabaya inuu attentionkiisa uu helo canuga markuu 5 bilood ilaa 8 bilood markaa inta u dhaxaysa markaa aragiisa aad ayuu markaan u kobcay 3D oo kale ayuu markaa aragiisa noqonaya wuxuu bilaabaya aragga dhexe oo wejiga hooyada markaa inuu aqoonsado waa sababta markaa canuga u bilaabaya inta badan inuu ilka caseeyo waa sababta wuxuu aqoonsan karaa ilkahaaga qofka markaa uu qoslayo ama ciyaarsiinayo uu aqoonsan karaa wejiga markaa kalarkiisa mise aragga aad ayuu aqoonsan karaa uu fahmaya 8 bil markuu jiran waa markii uu markaa canuga uu gurguurasho bilaabayo raba inuu waxyaabaha u dhow iyo waxyaabaha ka fog markaa uu la qabsado oo markaa koriimada aragiisa aad u kobacday oo wax badan ayuu aqoonsan karaa ilaa aragga fog oo kale xitaa si fiican uu arkaya oo qof ka fog oo kale markaa haddii uu ciyaarsiyo xitaa attentionkiisa uu arkaya oo inta badan aragiisa waxay u dhowdahay inuu dhammaystirmo 9 bilood markuu canuga jirsadana waxaa la dhihi karaa waa kalarada dhan walba markaa waa uu kasoo dhammaystirmay wax yar ah u haray laakiin waa xilliga markaa uu gurguuranayo istaagayo darbiyada qabsanayo markaa wax walba si fiican u fahmi kara aragiisa u dhammaystiran tahay 1 sano markuu gaaro ama 12 biloodna waa markii u dhammaystiran tahay 2 bil iyo 4 bilood markuu gaaro marka inuu indhaha wax la raaco ayuu bilaabaya laakiin indhaha markaa waxaa laga yaabaa inaan ku inay isdhaafsan yihiin oo kale aragtid dhib ma lahan 2 bil ilaa 4 bilood ilaa 3 bilood markuu joogo laakiin xilligan wuxuu aad markaa la rabaa inuu wax raaco indhihiisa wax raacaan oo haddii aad ku arki weyso indhihiisa ay wax raacayaan marka waxaa laga baahan yahay marka inaad dhakhaatiirta indhaha u geysay xaaladiisa xilli hore loo fahmo sababtoo ah lama rabo marka canuga in uu aragga aad u soo daafo marka xilliga uu weynaado kale wax laga qabtay aad marka u adkaanayso marka 12 bil markuu jirsado canuga markaan waa u dhammaystiran yahay aragiisa waaba xilli uu socdo ama lugihiisa ku istaagayo meelo qabsanayo xagga fiiriska oo kale aragiisa u dhammaystiran tahay xilligan lama rabo in indhihiisa isdhaafsanaadaan ama qalooc ay ku jiraan sida 3 bilood marka hore aan sheegno oo kale marka waalid haddii aad taho kale waxyaabaha laga baahan yahay waxay tahay kow haddii aad ku aragtid in indhihiisa oo kale aad isku dhaafsan yihiin oo kale ama hal il oo kale gudaha ku jirta ama hal il inay banaanka u baxsan taho kale marka in aad dhakhtarka indhaha u geysid midda labaad oo laga baahan yahay waxay tahayna 3 bil hadduu cunuga soo gaaraba haddii uu indhaha wax la raacaynin marka iyadana waa calaamad in uu canuga aragiisa sida la rabo uu kabac sameeyo looga baahan yahay dhakhaatiirta indhaha in aad la soo xiriirto intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeen waxaan idin rajaa caafimaad iyo nafyo